waxaan soo gaarnay magaalada Bujumbura ee dalka Burundi halkaas oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ee uga bilaabatay booqasho shaqo 2 maalmood madaxweynaha waxa garoonka diyaaradaha ee Bujumbura ku soo dhaweeyay dhigiisa dalkan mudane Pierre Nkurunziza inta uu madaxweynaha dalkan ku sugan yahay wuxuu hadallo la qaadan doonaa madaxda ugu sarreeya dalkan wafdiga madaxweynaha wehelinayana waxay kulamo iyo wada tashiyo iyo shirar la yeelan doonaa iyagana dhigooda safarkan waxaa madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka difaaca taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha waxaan soo gaarnay magaalada Bujumbura ee dalka Burundi halkaas oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ee uga bilaabatay booqasho shaqo 2 maalmood madaxweynaha waxa garoonka diyaaradaha ee Bujumbura ku soo dhaweeyay dhigiisa dalkan mudane Pierre Nkurunziza inta uu madaxweynaha dalkan ku sugan yahay wuxuu hadallo la qaadan doonaa madaxda ugu sarreeya dalkan wafdiga madaxweynaha wehelinayana waxay kulamo iyo wada tashiyo iyo shirar la yeelan doonaa iyagana dhigooda safarkan waxaa madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka difaaca taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha